badan aan u qabanaa adeega inta badan la xidhiidha arrimaha bulshada oo waxaa la wixii bulshada oo dhan daweyn hoos imanaya mas-uuliyiin ahaan iyo safaar ahaanba xafiis wal oo kuwii ka furan wadawada lagu soo weydiinaya dadka haddaan u sameynaya u fududayna iyo lafteeda baa dhibaato kala taas inta badan mas-uuliyiinta qabataa adeega dadweynaha abi markaad eegto dhibaatooyinkan aad ka hadashay maqaar sanadahan dambe inta burburka la bilaabmay baa mise waa qaar hore ay u arki jirteen kahor intaana dhibaatooyin ku dhacay dalka soomaaliya wadanku dee markii hore wuxuu lahaa meel loogu hagaagay iyo markaaba isla xafiisyo warqadaha laga soo sameeyo laakiin hadda waxaad moodaa in suuqii uu dhibaatadiisi noogu badan yahay annaguna de warqadii waxaan rabnaa in dad soo xaqiijiyaan oo dawladii ka dambayso taasaa dhibaato badan inta badan nagu haysa dadka halkan joogana markaan idhaahdo warqadani sax maaha iyaga laftooda waxay haystaan safaaraha leanna waan ficilinayn way leeyihiin waa dee iska sameeya in badan oonu dee ka qarsanaynaa indhaha way jirtaa oo wixii socon karaya in la socodsiiyo la fududeeyo way jecel lahay laakiin dhibaatadu kolba way sii badanaysaa taasoo iminka ugu sii wacan tahay waxaad moodaa waddankeeniiba iyo dadkeeniiba in toosh lagu hayo la eegayo oo leeyahay soomaali ba ahaa soo xaqiijiya inuu soomaaliya laftiisa iyo marka qaarkoodna soo marta dadyoogaasi inay isku dhow yihiin oo isdhaleen soo caddeeya waxayba noocaasa ayaana soo maraa qof lagu leeyahay soomaalinimadiisa soo caddeeyaana soo martay ninkaasi inuu soomaali yahay soo caddeeya ama safaarada warqadka soo qaadileeyahay marka waxaad moodaa iyaga laftooda inay aada iminka laynoogu soo jeedo siyaasadda wadamadan iminku ay leeyihiin bal soomaalinimada laftooda soomaalida aada ha loo eego taasaa inta badan ka qayb qaadanaysa xaaladahan imika socda markaabi baad leedahay waxaa baryahan dambe socotay laleeyahay soomaalida si gaar ah loo eego waxaa jira waxyaaba ay kaga duwan yihiin tusaale ahaan wadamada kale dadkoodu ay usoo shaqo tagaan dalkan kuwey maya different badan oo siyaasi ma jiro laakiin waxaa jira berigii hore soomaalida lagama qaadi jirin faro oo fare lagama qaadi jirin imika waa laga qaadaa qof kastoo soomaali marka ciqaamadu ka dhacdo faraa loo diraa waxaa loo diraa dhiig markastoo ka dhacdo dhiig baa loo diraa waddankana waxaa sharci ah qofku marka ugu horreysuu soo galo qof walba oo soo galay oo ciqaamad ku samaysanaya in laga qaado dhiig iyo faro oo caafimaadna lasoo mariyo farina laga qaado laakiin tii soomaalida way ka timid oo waxay noqotay wax kaloo ka duwan oo soomaalida mar kastaba kusoo noqnoqdo sanad walba lagu jeliyo waxaana halka ku hayaa warqad caddaynaysa dowladaha laga qaadayo faraha waxa weeye waa soddon dowladood soddonkan dowladood waxaa ku jira oo keliya oo carab ah soomaaliya iyo jabuuti inta kale waa wada african waa niger waa uganda waa cameroon waa ghana waa nigeria waa niger waa south africa waa wadamada africanka oo dhan inagu marka haddaynu nahay jaamacada carab ku jirno waxay inaan ka reebnaan laakiin waxaa laynagu daray wadamadii africanka oo la yidhi soomaalida waa lamid sharcigaas wuxuu qabanayaa keliya qofka dhoofa ee soo noqda laakiin markay doonaan waxay oranayaan orada fura soo marta taasaan yaqaynaa marka diyaaradaha dowladda waanu gudbinay waanu codsanay jaaliyadda warqaday qortay waanu safaarada warqaday qortay ilaa hadda laakiin wax lanaga dulqaaday ma jirto culays waxoogaa taasaan